بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلنتي وعن او wanaagsan meel kasta idin hantiinba aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeena Dambal TV oo alaaba si toos ah idinka yimaada maalin kasto Jimco ah bariga Sacuudi Arabiya gaar ahaan bariga Dammam maantana waxa hoyga martida ee Dambal TV martina ugu ah Mubaarak Cabdi Aar ama Mubaarak Cabdi Jeer Mubaarak aad baan kuugu soo dhaweynaynaa baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay awil adiga iyo Dambal TV ba عند السلامة يا waxaan filayaa in idin Mubaarak aysan muuqiisa ay idinku cusbayn waa qaybtii labaad ee Dambal TV Mubaarak marka labaad waan kaga mahad celinaa fursadaha wacan aad mar walba nasiisid aanu kaftano waxa jirta markasta aad bixinayso waraysiyo waxa inta badan aad ku maamaada xayawaano gaar ahaan qofka u baahan tahay ama dadka aad ka taageerto kalaba waxaad ku soo hadal qabsatay libaaxa dadka kale aad istiraadid magaranaysaaba mowqifkaaga kalaba maba taageersanaaba waxaad soo qaadatay xayawaanada marka aad ka liita sida eego kale iyo xayawaano lamida maamahan xayawaanka midhana xagee ka soo rurisa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وبعد مهما حيوانك قرآن كالا قبرتا حدي هدهد وسبب النقضي إن أمت دنسو إسلامتو نملد نأي بدشي استراتيجية دي دقالك النبي هو قاميني نبي الله سليمان وصورة دن لوغو مقعدري توكوه وسبب النقضي إنو بني آدم كبارو habka wax loo aaso duqsiga ilaahay uu maahmaah u soo qaatay subhanahu wa ta'ala ضعف الطالب والمطلوب كناعده ان الله يضنا سبحانه وتعالى الهي uu soo qaatay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ma bacudatan fama fawqaha yadana uu soo qaatay bahashan la yiraahdo caarada bayt al-ankabut iyadana uu ilaahay subhanahu wa intaasoo xayawaana iyo kuwa kale oo fara badan fiil haduu diiday inuu kacbada dumiyo oo quraankeenu sheegayo ximaar in uu mataqaana quraankeenu sheegayo kalb inuu sheegayo mathaluhu ka mathal kalbi in tahmil alayhi yalaf oo tatruku yalaf waxaasoo dhan marka la soo ururiyo waxa ku jirta mucjisooyin fara badan iyo maahmaaha fara badan iyo cibar fara badan marka waa duruus laga qaato قرآن كين يسندين ومهمنا عند دراسة بسميه ولي بالبارد. واجد. واحد شرتا مبارك عاد كوسا أما عاد أنت بدن إكتا قف خاتمه أما عد خاتمه ما جيسا أو خلاف سنبا توس بدو ويرتا أو حبات كشيكتا. ما هي تاي سببت عاد قف خاتمه معارض كقوة أما خلاف سنبا أدو ويرتا. ما هي تاي سببت. horta waxa ka horeysa hadii mas'aladu ay khilaaf tahay oo khilaafku uu yahay khilaaf jawhari ah ama laga niqaashi karo qofkaas oo kale aragtidiisa waa la eega waana la daraasadeeyaa gabya carbeed baa gabyo wuxuu yahay idaa nadaqa safihu fala tujibu fakharu man ijabati sukutu wa waafaqsan adiga hadalkaaga hadii mid aragti gaaban hadlo haw jawaabi inaad ka aamusta ka khayr badan inaad u jawaabtid لكن إن عقل مرك الله إيجو شريعتنا الله إيجو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدي أركتو عد دميريسا هوشي أد ودي قبياغا قادة تاوات كآموسيسا وفرحت كقاديسا أو دي مبدأ أقاد وضانيسا مسواد ردينيسا أو مقام ولي بمشي وكسل يسيه يباتشوجا مقالنا واحد شوجا رك فربضان وأفكار تيجي أفكار كدوان قضاء أنا نوض الصعون أصحابنا إنها أنا ردين وايو أنا كان نبيكو ما حيو أفكارتي سنة سجى جارطة لكن أمد نين كدومينية طموحي أد ودي أم هوشي أد ودي عدة دومينية يسيه هرت أجن عقبتكو إن لقى هريماتو عقلك iyo shariicada labaduba way ku farayaan
inaad waxaaga difaacatid xaq baad u leedahay marka taasaa keenta in aan ka hadlo midna waa kugu daraya mas'alada khilaafiga ah ama khilaafka labada qof u dhexeeya haddii uu yahay mid nacfi keeni karaya ama laga niqaashi karaya waa la qaadan karaya aan tusaale ku siiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay waxay ahayd masiibadii ugu weyneed ee ummadda muslimiinta soo waajahda ummadda muslimiintii waxay go-aansadeen in aan la aasin nebiga ilaa loo sameeyo qiyaadad in qiyaada loo sameeyo dabeedna rag fara badan baa xukunkii damac ka galay cumar baa kacay oo yidhi ninka doonaya inuu abubakar tujiyo abubakarna ku daba tukado gacanta taag waa la waayey haat yadda ku baayaco buu yidhi haddaba keen gacantaan kula baayactamay isaga u horreeyay wax la mubaayaco labadaa nina mubaayacoonayay baa khilaaf soo dhex gala khilaafkii soo dhex galay wuxuu ahaa nebi maxamed ciidan buu saaray calayhi salaatu wasalaam ciidanka waxaa hogaaminayay usaama bin zayd 16 jir bay taariikhda qaar yidhahdaan qaarna 17 jir buu ahaa cumar wuxuu yidhi mar haddii nabigii dhintay ciidankan hala joojiyo isagoo sababaynaya kow usaama waa nin da-yar waa inan yar qiyaadadna uma bisla laba fitan baa bilaabmay oo halka ka bilaabmay saddex qadiyadda inta aynu daraasadeynayno isagoo sababeeyey buu yidhi sidaa liajligeed aynu dayno abubakar wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa arrin nebi maxamed gooyey calayhi salaatu wasalaam inaan intaan ka daba tago anigu gooyo wallaahi haddii wax kastaa dhacaan inaan la joojinin usaamana waa qaatay cumar buu ku yidhi fuul adigu u horree cidda dagaalka gelaysa abubakar baa bariyay oo yidhi waxaad yeelaysaa aniga iida anigu ila talinaya waxaan uga jeedaa haddii khilaafku caynkaasoo kale uu yahay oo khilaaf macnale uu yahay qofka u horreeye ogol ee la xiwaara ee soo dhaweynaya waa aniga haddiise uu yahay caqiim ummadda duminaya in laga hortagaa waa lagama maarmaan midna waa kuu sheegaya hadduu ninku qiyaadada ataago aniga ciddii ataagta diyaar baanu ahay laakiin cinwaankaaga ama adriiskaaga cidda ataagta garaadkaaga aqoon-yahankaaga khaatuma liidhariskeeda cidda ataagta in la ataago oo layska celiyaa dee waa shay aan u baahnayn daliil haddaad tidhaahdo qoraxdoo soconaysa inay tani qorax tahay daliil baan u baahana daliil si dee waa ayaan darro qoraxdu daliil uma baahno marka in noocan la weeraro oo layska celiyo oo loo mahmaaho waxyawaanada loogu mahmaaho waa aniga aragtidayda wey waa shay habboon wey waxaa jira mubaarak marka barnaamij la wado ama mawduuc la wado qofku ciwaan buu u sameeyaa ciwaankaas waxaa wacan inuu bilow ilaa dhammaad uu qofku ciwaanka wuxuu ku sameeyey ka hadlo ninka la yidhaha spanish waraysigu bixiyey isagoo sheegay inuu yahay afhayeenka beelaha kamid a dhulbaante 50 daqiiqo buu hadlay waraysigaa bixiyey 45 daqiiqo wuxuu ku maagayay galayn wuxuuna sheegtay afhayeen beeleed afhayeenka beesha uu sheegtay iyo maagistayna galayn muxuu yahay khilaafka u dhexeeya sideedaba marka la rabo in ummad la jahwareeriyo ama waxaa loo bixiyaa musamayaad ama magac baa loo bixiyaa magacaa loo bixinaya waxay yidhahaan kalimatulxaq yuriidu biha albaatil kelmad xaqa baa laga yaaba qofku inuu cumaan ka dhigto laakiin waxa uu ku doonayaa ay baatil tahay aan tusaaleeyo qofka bani aadamka dagaalkii ciraaq markuu dhacayay ummad lama odhan karo waanu ku gumaysanayna laakiin musamayaad baa loo sameeyey waxa la yidhi dimuquraadiyaddii baanu dib soo celinayna waaya fanaadiqdan hoteeladan waaweyn marka la furayo ama carabtu iyagoo raba wax ay ku hayaan meesha inay dadka si kale ugu sheegaan bay waxay yidhahdaan yuujad hunaak sharaab ruux hoteelkaa waxaa laga helayaa sharaab ruuxiya waa khamri markaa ma odhan karaan hadday yidhahdaan khamri baa laga helaya markaa cidda fahmaysa ayuunbaa fahmaysa aan kuu kordhiyo bangiyada oo kale markay iclaamka samaynayaan waxay yidhaahdaan hada albank yaqbal alxadaara asariica almutaqadim yani bankigaas wuxuu aqbalaa xadaaradda caalamka la socon kartay mutaqadimka yani tastatiic an tuxaqiq biacal inaad si fudud ku xaqiiqdo malaayiin ujeedada waxaa lagu qarinayaa ribadu aqbalaa marka lama odhan karo waa banki ribo welista ah laakiin waxaa loo bixinayaa musame aan musamihiisii ahayn ayaa loo bixinayaa waxaan u malaynayaa intaas inay tusaale kuugu filantay cinwaanka uu soo qaatay haddii uu beel ka hadlayo beesha anigu waxaan ku jiraa maalan urur beeleed oo qurba joogta ah
wixii maslaxadda iyadu tahay reerka maslaxadiisu tahay baa lagaga hadlaa haddii wax la qabanayo lagu qabtaa markaa kuma magacaabi karo waxa beeshaydu maalan tahay anigoo ka hadlaya inaan qadiyadda beeshayda ka hadlaya haddana cid kale dee cinwaan intaan uga dhigo waxaan isqaban karayn ugama keeni karo laakiin mid baan kuu sheegaya tani waxay keenaysaa aragti gaabnida iyo aragti la-aanta ninkan aad ka sheekaynaysa ee asbuucii hore aynu ka hadlaynay had iyo jeer soo qaata cali khaliif iyo weerarkiisa asbuucii hore waxaynu ugu mahmaahnay gabadh markaa nin baa ila hadda wuxuu yahay gabadh ha ugu mahmaahay ninka la yidhaha abu xaniifa madhabaha sheekhaqa ka mid a ayaynu ugu mahmaahaynaa sheekhaasi wuxuu ahaa sheekh caalima buu ahaa macruufa maalin maalmaha kamida baa lagu xanuunayeen dabeedna dhaqanka carabta qofku lugaha lama fidiyo waayo mujtamaca kaasoo horjeeda ayay lama ogola markaa isagu lugaha xanuunaya liajligeed ayuu lugihii fidsaday dabeedna waxaa usoo galay nin haybad leh oo xoog leh oo u eg spanish dabeedna wuxuu ku yidhi sheikh soontu xaggay ka bilaabataa ilaa xaggay ku dhammaataa dabeedna wuxuu yidhi xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayd alaswad min alfajr su-aashii buu uga jawaabay dabadeedna wuxuu yidhi hadday qoraxdu soo bixi weydo ka war shiikhii wuxuu la yaabay qabinimadiisa waxaan iyo dee muuqaalkiisa iyo nacasnimadiisu inaana islahayn dabeedna cagihii buu fidsada wuxuu yidhi aana liabi xaniifa an yamudda yaday ay rijlay waxaa la gaaray waqtiga abi xaniifa labadiisa lugood kala baxsan lahaa waxaa la gaaray waqtigii nin kasta oo khaatimo ka hor yimaada loo jawaabi lahaa la dhaleecayn lahaa loo maahmaahi lahaa laga qaban lahaa mujtamaca marka waxa ka qaylaarsiinaya wuxuu yahay nin dalligan reerkiisa waa ducuma dhaafaane dadka kugu dirya iyo afxumo kugula daaliyaaba sidii dumar la wada guursado kula diray nin dhan oo aanay u muuqan hadafka la doonayo waxa la hiigsanayo ummadiisu waxa ay ku sugan tahay oo ninkii wax qabanayay cambaaraynaya oo dhaleecaynaya waa wax lala yaabo maxaa ka qaylaarsiinaya wuxuu yidhi sidii uu miftaaxii jannada mawla kaa qadiyey ama maal adoogaa lahaa meel lagaa mariyey waxa aad la murugaysantahay waa macno la-aan maal lagama dhicin ciddayn kuma laha wax lagama haysto dhulkiisii baa la haystaa waa fadeexadaysan yahay kii wax qabanayay buu xagxaganaya war markaasaad leedahay ha u jawaabi adigaan ku su-aalayahay caqliga iyo dadnimaduba miyaanka odhanay u jawaab weliba waxun ugu jawaab oo aan garana ma arag waxaa jirta hadaladiisi waxaa hadal aada u badan buu ka hadlay weliba aan qaarkood laba soo qaadan karin wuxuu ku daray tahdiid uu yidhi cid baan hortaagnaa oo dadka aan hortaagnayna waa fasaxay marka dadka uu hortaagaya ama cidda hortaagan yahay maxay kula tajawaabaan kolley wax waliba mithaal bay ku wacan yihin waxaa jiray majmuucad tuug ah dabadeedna waxay usoo galeen nin taajira suduuxay u baxeen ninkii guriga lahaa baa maqlay shanqadhii dabeedna wuxuu ogaaday in guriga tuug ku jiro dabeedna wuxuu damcay inuu naftiisana ka badbaadiyo mujtamacana ka badbaadiyo xaajiyadiisii buu toosiyey wuxuu yahay islaan yahay toos waxaad igu tidhaahdaa ood i weydiisaa maalkan xaggee ka hesha dabadeed marka aan ku idhaahdo iga daa jawaabta ilaahay igu dhaari ilaa aan kaaga sheego gabadhii sidaba yeesho waxay tidhi maalkan xaggee ka hesha wuxuu yidhi gabadh yahay arsaaqdaa ilaahay kuu keenay iska cuno iska cabo inaga daa hawsha waxay tihi ma ilowla waad ii sheegaysaa wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inay dad kale maqlaan oo arrintaa ay maqlaan baan ka baqayaa oo ay ka faa'iidaystaan sida aan maalkan ku helay waxay tihi cid kale maqli mayso waana labadeed tuugtii hadalkii bay maqasho dhegta u dhigeen wuxuu yidhi maalkan waan soo xada waxay tihi nin shariifa baa too maalkan maad soo xadini ii sheeg wuxuu yidhi waan soo xada waxay tihi ii sheeg sidaad u soo xaday wuxuu yidhi waxaanu nimaadnaa aniga iyo saaxiibaday guryaha tijaaradu leeyihiin sida guryaheena oo kale dabeedna dusha saraanu uga baxna habeenku markaa waa habeen cadda ah waxaanu samayn jirnay daaqadda uu ku beegan yahay caddadu ee dayaxu baanu kasoo degi jirnay waana daaqadda ku beeganta uu isagu joogo
dabadeedna waxaanu akhrin jirnay adkaartaa markaanu akhrino baa maalka guriga yaallo oo dhani noo imaan jiray ninkii hogaaminayay tuugta baa daaqadii eegay oo kasoo degay markuu kasoo degu dube dhakada kaga dhuftay dabeedna wuxuu ku yidhi war maxaad ahay dabeedna wuxuu yidhi waxaan ahay ana musadiqun makhduuc waxaan ahay ninkii rumaystay wixii lagu khiyaameeyey ayaan ahay almuqtar bima ee lagu khiyaameeyey waxaan weligeed dhicin abaalka qof kasta oo rumaysta waxaan caqliga gelina abaalkiisu waa sida waxaan leeyahay cidda hadalkiisa qaadata dubahaasina waa ku dhacaya wuxuuna la kulmayaa waxaa iyo wax lamida aan kuu kordhiyo ninkan mas'aladiisa waxaan jeclahay inay meelo fara badan gasho isagu hadafkiisu wuxuu doonayaa inuu ummadda kala jejebiyo una kala qaybiyo beelo iyo wax lamida nin baa jiray galeydh la yidhaahdo ninkaa galeydh la yidhaahdaa nin baa jira ay walaala yihiin dabeedna wuxuu ku yidhi walaal nimcadan aanu hayno iyo barwaaqada kaale oo nala joog oo wax nala qab wuu ka soo carara wuu ka soo daba orda wuxuu jira walaalkaa yuu kaa tegini soo gaa ceel buu kaga dhacay ceelka markaa ceel buu sida ka galo intuu ceelkii ka galay ayuu wuxuu qabsaday laantii hoostiina waa ceelkii laantiina wuu haystaa dhinaca midigtuu eegay mise wuxuu arkay laanta uu haysto in jiir cunayo dhinaca kalena hoostiina wuu eegay mise mas baa afka soo kala haya bidixdiina wuu eegay mise malab shini samaysay baa meesha yaalla intuu ilaaway wixii khatar ahaa ee haystay oo dhan ayuu ku mashquulay inuu leefleefo malabkii dabadeedna geedkiiba ku dhacay dabadeedna waa halaagsamay waxaan uga digayaa inuu halaagaas oo kale ku dhaco waxa walaaladii la doonayaan inuu yimaado waxaa jirta aslanba mubaarak marka qof doonaya inuu soo caanbaxo matalan ba siyaasiyiinta oo kale qof basiba kusoo baxa ama aqoontiisu ha keento ama fikrado kale ha keeneen ama qof kaleba ha keeneen waxaa jirta qofka siyaasiga siyaabo badan buu usoo caanbaxaa ma is oran kartaa cabdillahi spanish maagista uu galeydh maagayo cali khaliif galeydh oo maagayo waxay kugu darasaa siyaasiyiinta soomaalida gaar ahaan hadda isagu wuxuu carabka ku dhuftay inuu puntland oo kale u janjeero ma kula tahay maagista inuu galeydh maagayo in maamulada mid u jeedo cali khaliif kan iyo ashkaaltii horta uma jawaabo riixda baasha dabaysha la yidhahda waxay doonataa nakliga ama dhirta waaweyn dhirtimreedka waxa waaweyn bay jejebisaa hadafkeedu xashiishka iyo kuma mashquulsho cali khaliif ninkan umana jawaabo intaana meelahaas ku qayliya reer khaatuma is arkaya laakiin waxaa jira qadiyad kale oo si kale aynu dhigno ninka marka aad doonaysid mujtamaca la tusa aan galeydhkii dib ugu celiyay qiso kale shimbir adugu waxaa doonta ku magacow baa wuxuu arkay dawac qayladiisii laga seexan waayey goor walba waa qaylinaya dabeedna galeydhkii baa la hadda wuxuu yidhi qaylada iska dah wuxuu yidhi qaylada dayn maayo haddaad qaylada dayn weydo si fudud baa lagaaga takhalusayaa buuri waxaad samayn karta samee buuri galeydhkii wuxuu sameeyey boqorkii magaalada xukumayey dahab uu leeyahay ayuu ka qaatay dabeedna wuu la cararay dadkii oo dhan baa daba yaacay dadkii markay daba yaaceen marba wuu sugaa si dadku usoo gaadhaan waxay soo socdaanba godkii dawaca ku jiray ayuu ku riday dadkii iyo dawacii baa is arkay dawacii halkii baa lagu dilay ninkan mujtamacun baa isaga la tusaa isagiiyo markaa cali khaliif umana jawaabo hadalkiisana tacliiqaad kama bixiyo laakiin mujtamaca reer khaatumo oo dhan ayaa arkaya website-ada laguma nashriyo lama soo qaato xitaa hab TV ahaan oo kale kuma yimaado wuxuu ku yimaadaa wax laga soo duubay waxaan ku sheegaa mobile iyo wax lamida marka maaha yani waa ka xumayna waqti inta le kullu miya maslaxad inta ka wada ka wax inta ka manfaco u leh reer khaatumo inaan ka hadlaan ka jeclaa inaan inta waqti le kullu miya
qaybihiisaan soo gabagabayno Spanish isagu dee ayaamahan baa maagista ina kale ku caadaystayba mahmaah buu bixiyey ugu magac daray xagarka mahmaahda dad badan way isweydiinayaan mubaarak ahaan maxaad mahmaahda ku turjumayay mahmaahdan iyo afar weji bay leedahay laakiin weji ka mid oo baan soo qaadanaya aniga aragtidayda waxaa laga yaabaa haddaad kartoon yar sawirto dhacdada iyo habka loo kala turjumaa way kala duwanta inagoo meel wada fadhinaa dhacda dhacaysa laakiin labada sawir aynu ka qaadanaynaa waynu kala duwanna xagarkani waa reer marka waxaa jirtay mahmaah ka horreysay oo anigu aan ku mahmaahay dhidan iyo libaax ninkii shaqaalaha qoranayay oo xalaqadantii ka horreysay ahay waxaa ku jirtay markaa ina xaabsaday ayaan anigu hadafkayga tusayey in meesha shirqool ku jiro isna shirqoolkiibu ila waafaqa xagarkani waa reer reerkana cid kale kalema joogto dukhaan buu leeyahay shidanina buu qiiq buu leeyahay shidanina markaa wuxuu ila waafaqay in meesha shirqool ku jiray shirqoolkana uu ogaa aniguna waxaan uga digay in inta meeshaa shirqool ka dhaco reer khaatumo ay mushkilad hor le abuurto waayo had iyo jeer waxyaabaha ay sameeyaan maamuladu waxaa ka mid a in beelaha walaalaha iyo dadka ehelka ah inta lagu soo duulo oo laysa suro oo laga shaqeeyo markaa si aanay taasi u dhicin baan anigu uga digayay mahmaah sidaasabay ahayd dabadeedna wuxuu ku gebagabeeyey wuxuu leeyahay qiiq buu leeyahay meeshuna waa nugaal xagarkaa markaa hashidanina meesha la yidhaahdo nugaal xoolaha lagu dhaqdaa xoolaha lagu dhaqdaan arigaa ka mid ah khaasatan ariga markaa waxaa lagu daweeyaa bahalka la yidhaahdo xagarka waa lagu oodaa waana lagu daweeyaa manaafic fara badanna wuu leeyahay nugaal wuxuu yidhi gaastaa la shitaa gaasta wuxuu ka wadaa gaas iyo puntland meesha gaas laguma shita wey waana bane dhaxanna way leedahay geedkaa hashidanina gaasna meesha ma taalo gaasta dad buu tilmaamayaa dadna wuu kasoo kaxaynaya marka waxa weeye beel buu rabaa inuu kasoo gooyo beel kale oo walaaladooda gaasna u geeyo marka tafsiirka anigu aan saaraya waa intaa 3-4 tafsiir oo kale aan saari karaan way joogtaa laakiin waqtiga cidhiidhi awgeed intaasaynu u daynayna waan garan maar intaaynu kaga baxno barnaamijkii mubaarak waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii dowladda federaalka ahayd isqabqabsi badan ra-iisul wasaarihii khadka waa ka baxay ra-iisul wasaare kale ayaa lasoo magacaabaya dadku way faalleeyaan reer hebel reer hebel reer hebel maxay yay kula tahay baa sanadkan leh ma kula tahay in qof kasoo jeeda khaatumo uu helayo waa ku rajo weynahay aada iyo aada iyo aad baan qolyaha loolanka ku jira weliba la tilmaamayo daawud bisanlah ka mid ah oo kasoo jeeda maxaan kuu sheegaa reer khaatumo ah natamana inuu waana tamaniyeynaa oo jeclaan lahayn inuu noqdo wuxuu ka mid yahay qolyaha gamiska laakiin de hadda dawladi ma jirto meesha maamulla kama jiro dawladna ma jirto lacalahu casa taasi waxa weeye likulli xaadithin xadiid marka ay timaaduun baa dee la faallayn karaa ama la ogaan karaa laakiin de waa muwaadin soomaaliyeed beesha ra-iisul wasaaruhu kasoo jeedana wuu ka mid yahay dadka ugu hahaboon ugu firfircoonna wuu ka mid yahay waan garanay daawadayaal intaas waxaynu kaga gudbanaa barnaamijkeena aan ugu talagalnay dhambaal t v oo waraysi ah qaybtiisii labaad aanu la yeelanay mubaarak cabdi aar intaynu barnaamijkan barnaamij lamida aynu ku kulmayno waa anigoo ah cawil cismaan jaamac cawil cagare waxaynu idinkaga teganaa sidaa iyo kulanti dambe aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay